horta anigu waxaan dhashay 28 19 waan ku soo galay Faamus waxaan ku noqday 20 jirkii halkaasaan ka bilaabay macallinkayga waxa la oran jiray Abdi Xamdulle Shanle reer Burco ahaa macallinkayga labaadna wuxuu ahaa Xasan Nahaari tartanaan soo galay waxa dhacay dhowr iyo kontonkii meelahaas baa waxa la sameeyay karnivaal baa laga sameeyay adan ingiriiskii iyo iskooskii iyo hindigii iyo carabkii iyo tartan bay sameynayeen Soomaaliga anigu waaba ka baqayay laba nin oo Soomaaliyeed oo la kala yiraahdo Abdullaahi Warsame Kaarshe iyo Maxamed Ali Abdi iyo Maxamed Ali Naahil ku magac dheer waa wiil waad galaysaa bilqasab waxay soo gooyeen laba go iyo weyso qori ka samaysan iyo masalle sidii Maxamuud Salmaan waan galay meeshii waan ku guuleystay sababtan ku guuleystay waxay ahayd kow dharka aan la galay kuwa kale dhar aan lahayn bay la dharkii hidaaya dhaqanka Soomaaliya mid labaad kali ahaanta aan kabanka meesha u baxay iyaguna full orchestra bay ku galayeen anuna kabanka kaligiisaan la galay in xujaydii kabanka aad iyo aad taqaan aad u dhageystaan waliba dadkii hore oo dhami dhalinyarada waa dhici kartaa kabankan markii dambe ee waqtigii Ingiriisku halkan xukumayay markii dambe xorriyadda la qaatay iyo bal iiga waran qaybihiisa meel waxaan ka soo degay anigoo kabankaygu kaliyeesita nin kastamka saar u diray niman macallimiin oo dayaxaha meesha leeyahay haysta halkii baabuurii soo direen waxa xusuusnahay baabuurka waxa waday nin la yiraahdo Darayo waqtigee baad waqtigaasi waxay ahayd 1961 wixii ka dambeeyay bal ka waran ee fanka Soomaalidu heer sare gaaray bal xagaad kaga jirtay ka koobaad baan xagga uuska xagga Soomaaliga qaybteeda waan lahaa Abdullaahi Qarshiye ma wada shaqayseen Abdullaahi Qarshi bilowgii durbaankan uu jiray marka isaga ba igu dhiiriyay qabankiisaan taabtay markaasuu igu aabaha muxuu ku iibiyay markaad iskuulka tagaysay waxaan buug iyo qalin wuxuu kaban iyo riishadiiso tiibaan ku dhaqaaqay markii dambe Abdullaahi Qarshi codadku sameeyo ma sumi jirin ana sumi jiray codadka ugu waaweyn ee heesaha aad tuntay ee la yaqaano ee mesela wadaniga oo kale maxaa kamid ah wadanida markii calanka tartan baa laga galay cadan heestii calanka lagu saaray aniga sameeyay heestaa waxa Maxamed Xaashi Abdi oo director ka ahaa idaacadan Hargeysa baxaga cadan yimi oo tartanka eegayay heestii magac buu wuxuu bixiyay dhalad imka sanadkiiba mar la saaraa maxaa kamid ah midhaheedii ala yoomu dhayan ma hadidibkaagu dhaxana wada dhibsoo mudanaye daraarowday maalintaan u dhashay dhiigayga inaan ku miidho dhulka oon aawada u dhintaan ku dhaargalay yaa sameeyay aniga taasi waa taa xagga jacaylka oo kale heesaha hirgalay ee la yaqaano maxaa kamid ah aad saartay laxanka waa ta ugu qaalisan raaxayaana sameeyay marka heesta raaxaye waa badda dhaantada weeye heesaha kan loo yaqaano qaraamiga watan Maxamed Axmed iyo qaadaan miya maxaa kamid ah midhaheeda adeer kuma luuqayn karayo laakiin midhaha kala mid kasta oo dhantii waa gelaya masalan waxaad ka soo qaadaa nafyahay orodoo arligii qabo oo halkaad ku ogeyd ka soo eg kaasoo kala kamida caashaqu ma baaba'o oo waa laga bogsadaana waa been xudaydii cid aad adigu bartay kamanka oo dabadeetana ka aflaxday ma jirtaa Umar Duule Allahumma salli ala Muhammad ninkii loo oran jiray Goobe dad aan koobi karaynin reer Jabuuti ilaa halkan ilaa galbeedka ugu yaraan 5 baan baray imaka intan dambe London baad degantay bal ii waran kaalinteebaad ka qaadataa fankayga diyaar baan lahayd waxaan doonayay halkan nimanka dhalinyarada ah kuwa imka soo koraya inaan mar yara dhex galo gacan siiyo markaad joogto kale masalan debadaha kamankaagana waad seetaa waan ku arkay maxaa ugu badanaad ka qayb gashaa maayo waxaan sida album caruur yar aan kamanka ku baro waaweyn ku baro dumarkii oo yidhi ragga isdhex geli mayno gabdho ayaga u simaa baan baray oo London ku bartay maxaad oran lahayd fanaaniinta imaka maxaad oran lahayd fankii waxaad wada inuu sii shiiqayo fanaaniintu waa dhowr qaybood waa qaar ciyaartooy ah iyo qaar heesa iyo qaar tuma iyo abwaanada kuwa heesaya waxaan oran lahaa waxaa cunihiina wax yeelaya uu sigaarku ka mid yahay iska daaya aad iyo aad buu xun yahay kuwan
la daawado ee ciyaara oo yaryar waxaan leeyahay hamoodina halkiina ay sheekadiinni dhammaatay ku dayda kuwa idinka sarreeya ama idinka horreeyey taariikhda af soomaaliga aa ku heesaysaan ereyga siyaasiga ah ha qaadina ereyada jacaylka ah oo keliya gala ereyada jacaylka laftooda xulka ka qaata waxaa jira ereyo iska shamanoo fanaanku markuu ku qaado dhamoodayo hees hoos buu kula dhaadhacayaa heesaaqow midhaha lagu keeno xul oo eeg oo midho loo joogsado ha noqdeen siyaasaddana dhaafba haddii aanad dalka ammaanayn siyaasadda adigaa lagugu soo dhuumanayaa iska ilaali